dhammaantiin waxaan ka codsanayaa kiliibka in laysii gudbiyo meel kastoo aad joogtaan dunida dacaladeeda waa anigoo imika ka baxaya shaqadii dabeetana war degdega aan idin siin kari waayey anigoo ilaa caawa maqlayey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee muuse biixi cabdi oo ilaahay subxaanahu watacaala laygu yidhi hadda wuu xanuunsanayaa sida wariyahayga midhinow duranow ii soo sheegay waxaan ka codsanayaa ummaddayda halkan aanu ka wada xidhiidhi jirnay ee muslimka ah ee ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba haddii uu madaxweyne yahay iyo haddii uu kaariyoonle yahay iyo haddii uu danyar yahay iyo haddii uu qof muslina yahay ummadda oo dhammi inay wada xanuunsanayso wada dhimanayso la wada tegayo waa la wada og yahay waxaan haddaba idinka codsanayaa meel kastoo aad joogtaan oo aan idinka codsanayaa ilaahay midh baan weydiisanayaa ummadda soomaaliyeed ee halkan ku jirtana midh baan weydiisanayaa waa guddoomiye baabulaahi oo idin leh aniga if iyo aakhiraba dhammaan ummadda soomaaliyeed waa bir rabadaan waa iga wada saamax muuse bixina waaba iga sii saamax waxaan se idinka codsanayaa ilaahay isagoo nabad qaba oo caafimaad qaba ilaahay subxaanahu watacaala inuu soo nabad celiyo muuse biixi ayaan idinka codsanayaa dhammaantiin mid wax u hayey mid ay is hayeen mid ka cadhaysnaa mid diidanaa mid jeclaa mid ku mucaarid ahaa iyo mid kaleba waayo gobonnimada waxaa la yidhaha waxaa ku jirta ninka markay ishaysaan ninka marka ay ishaysaan ee ay ishaysaan haddii uu xanuun ku dhaco ama ay geeriyey ku dhacdo waa ninnimo darro haddii aad tidhaahdo hebel waanu ishaynayo wixii ku dhacaa ha ku dhacaan maaha ninnimo maaha soomaalinimo maaha ragannimo maaha dadnimo maaha karaamo maaha sharaf dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa oo aan leeyahay saylicina waxaan leeyahay oo aan leeyahay sayliciyow waa inaad booqataa dhakhtarka kaa dambeeya ee tiimbey waa inaad booqataa danyarta dhakhtarka weyn jiifta waa lagu cimri qaataa xanuunka oo wax jira madaxda malaha xanuunku ma kare baa laydinku yidhi malaha lama dhimanaya baa laydinku yidhi waxa weeye waa addoommada ka mida buu ahaa muuse biixi cabdi kama wanaagsanayn maxamed ibraahim cigaal kama wanaagsanayn nebi maxamed kama wanaagsanayn waalidiinteennii cabdiraxmaan tuur kama wanaagsanayn dhammaantiin waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba ha loo duceeyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee muuse biixi cabdi ummadda culimmada ah iyo dhallinyarada iyo cuqaasha bir rabadaan baa lagu jiraa bir rabadaan ayaa lagu jiraa ragannimadu iyo ninnimadu aniga waxay i faraysaa muster baabulaahi baa la yidhaha ninka haddaanu imika xabad isku ridayno oon dhaawaco inaanan dhaawiciisa dilin oon soo qaado waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba kiliibka ha laysii gudbiyo hadday arrintaasi jirto oo muuse biixi cabdi waa addoommada ilaahay ka mida oo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ahaaye haddii uu xanuunsanayo oo ay jirto waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed culimo awdiinta dhallinyarada cuqaasha odayaasha sulaadiinta shacabka somalilan shacabka soomaaliyeed shacabka jabuuti shacabka jigjiga shacabka puntland mid jecel iyo mid necebba in loo soo duceeyo inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu inagu soo celiyo isagoo nabad qaba waa la wada tegayaa maalin maalmaha ka mida baa la wada tegayaa waa la wada dhimanayaa maalin maalmaha ka mida baa la dhimanaya hadeeg waa la wada tegayaa maalin maalmaha ka mida baa la wada dhimanaya ummaddoo dhammi way dhimanaysaa ummaddoo dhammi way tegaysaa waxaannu u sheegaynaa madaxda kale ee iyaduna noolla ee iminka joogtana waxaanu ugu jecelahay oon adduunyada ugu jecelahay oon adduunyaday ugu jecelahay ninragaadku dhalay waaye araga anugu jaamacadda waaye araggaan ka soo baxay waxa weeye markaad nin raga tahay ood laba xiniyood leedahay eed rijaal tahay eed rag iyo dumarkaa doontaba tahayd qof fariida tahay ood qof soomaaliya tahay ood qof muslina tahay ood qof rijaala tahay oo qof waxna dili kara waxna noolayn kara aad tahay marka qofka aad ishaysaan uu xanuunsado madaxweyne aad diidantay uu xanuunsado waxaa isku haysateen uu xanuunsado waxay gobonnimada iyo sharafta iyo karaamadu ay ku jirtaa mid ku mucaarid ahaa iyo mid muxaafid ku ahaarooba waa in dhammaantiinba aad wada saamaxdaan una wada ducaysaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee muuse biixi cabdi u wada duceeya baan idin leeyahay mid jecel iyo mid necebow waxaa ku jirta dadnimada waxay doodani ku faraysaa ragannimada waxay doodani ku faraysaa islaamnimada waxay doodani ku faraysaa ehelnimada waxay doodani ku faraysaa walaaltinimada waxay doodani ku faraysaa naxariista rabadaanta waxay doodani ku faraysaa siduu nebi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay doodani ku faraysaa siduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam
waxay tidhaahdaa hees kale oo nin gacayta la yidhaha qaadi jiri dadku way coloobaan marna way isciseeyaan sida laba cadaawaa lama kala cad goosto war gobonnimada iyo raganimada anugu waxaan u aqaanaa waxaa aniga laysoo baray waxaa suldaankaygu isoo baray waxaa adeerraday isoo baray wuxuu aabbahay isoo baray waxaan rag la soo bartay waxaan dooxa soo maray waxaan jeelal ku soo maray waxaan dunida ku soo maray waxaan nin raga la soo fadhiistay waxay dooddu i faraysaa ninka haddaa xabad isku ridaysaan oo imika aa isdilaysaan oo xabbada aa isla dhacaysaan naw oo dhaawacdo inaad dhaawiciisa dilin oonad inay gumeed dilin waa la soo gobannimo qaadaa ninka haddaa ishaysaan caloosha ha ka habaarin ninka haddaa ishaysaan uurka ha ka habaarin waanu u ducaynaynaa annagu waxaanu leenahay muuse biixi cabdo waxaan ilaahay kaaga baryayaa inuu nabadqab ilaahay kugu soo celiyo nagaa cidaanu caynaba hayna mayna bilaanu caynaa markaanu muuse weyno masaylici baanu caynaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu muuse ku soo celiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu caafimaad sareecana ku siiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inaanay taadii noqon arnoo sheergareeya barnaamijka gunya gutu dhasha war barnaamijka noo sheergareeya markay xaaladdu adkaato weligii baanu geli jirnay xaaladdu markay adkaato waa nala baray waxaa la odhan jiray nin xuseen xasan la yidhahdaa wuxuu odhan jiray siriya caad xumaan iyo samaan wax kastoo sameeyaba amba waan ka soo saari jiray sayma kii gala wallee billee tolle halkan 8 habeennimo galay ayaan hadda ka soo baxay dabeetana facebookaan furay waxaan arkayay wararka mar kale ilaacadda cadaalana waan ka maqlayo inoo soo gudbiyey waxa weeye ninka raga ee rageedka ah ee fariidka ah ee dadnimada leh ee karaamada leh ee rijaalka ah ee gabadhiisa furi kara ee qabi kara ee ilaahay u soomi kara ee u salaadi kara ee dagaal kari kara ee dood geli kara ee deeq kari kara ee laba beelood heshiisiin kara ee rag iska celin kara caloosha iyo uurka iyo qalbigaba waxaan ka codsanayaa shacabka jigjiga iyo shacabka jabuuti iyo shacabka puntland iyo shacabka muqdisho iyo shacabka soomaaliyeed iyo shanta soomaaliyeed dhammaantiinba in muuse biixi cabdi loo duceeyo inuu ilaahay nagu soo celiyo subxaanahu wa tacaala isagoo nabad qaba aad baan idiin salaamaya weligiin yaa lihiin gobonnimada ha ka tegina raggu waa isaynaya weligeed baa la isqabanaya laakiin gobonnimada lagama tago uurka iyo caloosha iyo afka intaba waa naga saamax muuse biixi cabdi ragga ku mucaaradkana waanu hayn kursigaanu isku haynaa isaga se ma shacsi nacbin reerkiisa ma nacbin dadkiisa ma nacbin ehelkaiyo weeye dadkayagii weeye madaxweynayaasha soomaaliyeed oo dhami waa dadkayagii iyo jiirhkayagii ummadda soomaaliyeed oo dhami waanu u ducaynaynaa dembigiisa allaha dhaafo kii waalidiintiisa allaha dhaafo caafimaad sareecana allaha siiyo khaatumada ilaahay khayr ha ugu khatimo maalinta yowma alqiyaamaha ilaahay cadaabaha ka digo shanta diin islaamka iyo ilaahay ha ku dilo ha ku nooleeyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inaanay tii sii noqonin noo sii sheergareeya barnaamijka ha lay sii sheergareeyo nin waliba meel buu madaxweyne ka yahay anigu waxaan madaxweyne ka ahay halkaygan yar ilaacadayda yar waxaa la yidhaha ilaacadda baabulaahi shacabka somalilan waxaan leeyahay culimaa awdiinta waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho waxaan leeyahay qof kasta oo soomaaliya oo diir ku yaallo oo islaama oo sooman ha loo duceeyo muuse biixi cabdi ha loo duceeyo muuse biixi cabdi haddii uu xanuunsanayo madaxweynahaasi waa siday wararku igu soo gaadhayaan farmaajo ha loo duceeyo hadduu xanuunsado oo muuse ha loo duceeyo oo ismaaciil cumar gelle ha loo duceeyo oo ina cagjar ha loo duceeyo oo madaxweynayaasha ha loo duceeyo war qof waliba wuu dhimanayaa maalintiisuu ka tegaya yaan la coloobin waxa weeye markaad nin raga tahayna ee raganimadu waxay ku faraysaa markaad nin raga tahay eed ilaahay garanayso eed nin rijaala tahay eed nin rageed tahay eed rabbi garanayso eed dumar garanayso eed dad garanayso waxaannu idinka codsanaynaa meel kastoo aad joogtaan mid jeclaa iyo mid necbaaba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad sareecana siiyo waxaan idinka codsanayaa waan soomanay ilaahayow rabbiga casaa wajallaahow ii sii sheergareeya barnaamijka waan soomanay ilaahayow adaan kuu soomanay ilaahayow adigaan addoonkaagii ahay ilaahayow adigaa casaa wajallaa ilaahayow naftaydoo kaluu leeyahay ilaahayow waxaan ilaahayow kaa codsanayaa oon anigu kaa codsanayaa markaan guddoomiye baabulaahi ahayd waxaan kaa codsanayaa een addoonkaagii ahayd maanta inaanan tiisii ka dhigina caafimaad sareecana aad muuse biixi cabdi ku soo celiso ragga ishayeenna wallaahi waanay raganimadu waxay ku faraysaa doodaydani waxay ku faraysaa haddaad nin iyo gabadh kale tegay tihiin oy carruuri idinka dhaxayso gabadha ha la coloobin carruur baa idinka dhaxayse
haddii ninka ay saysaan oo kursi isku haysaan oy dhibaato ku dhacdo ha ku farxina caloosha iyo qalbiga iyo raganimadaba ugu ducee waxaan idiin sheegayaa mid ku mucaarid ahaa mid ay wax isku haysteen mid ay wax ka dhaxeeyeen miduu xalay ku soo duulay miduu habeen hore ku soo duulay miduu yara cadaadiyey miduu cibmay cabdimaalig laftiisaan leeyahay jeelka dhexdiisa uga ducee muuse biixi cabdimaalig laftiisa ayaan leeyahay laba ragcadood tuko oo muuse biixi cabdi uga ducee jeelka dhexdiisa waxaan leeyahay maxaabiista xalay toole la xidhay ee lagu xidhay magaalada Hargeysa ee ina foodhaadhi ku jiro iyo 60 nin ee laga soo qaaday magaalada Boorama lagu xidhin ee maxaabiista ee qoraalka Muuse lagu soo xidhay iyagana u duceeyay baan leeyahay maxaabiista jeelka ku jirta oo dhan waxaan ka codsanayaa iyo ummadda Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Jigjiga iyo ummadda Soomaaliyeed iyo shanta Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in Muuse Biixi Cabdi loo duceeyo doodani waxay ku faraysaa dadnimada insaannimada waa mid aan bartay anigu doodani waxay ku faraysaa ninnimada iyo raganimada doodani waxay ku faraysaa sidii bini'aadanimada iyo jiirka iyo walaaltinimada iyo islaamku yahay muuse biixi cabdi waa in loo duceeyaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba waxaan ka codsanayaa oo fariin u soo faraya maxaabiista dhammaan muuse dartii u xidhan ee jeelasha ku jirta Soomaaliland in ay u duceysaan waxay doodani idin faraysaa oo aniga gaariga ay baray oo maxamed mooga ay baray oo raggii rag ahaa ay baray oo raggii rag ahaa ay baray oo ii baray ninka la yiraahdo in abwaaniinti oo dhami ay bareen oo aan la fadhiisan jiray inaanad noqon qof jaaqufa oo qofka ishayaan markuu xanuunsado sii habaara war caloosha ka sii daaya madaxweynaha loo duceeyo dhammaantiina loo duceeyo waxaan idin leeyahay cabdimaalig oo u duceey maxaabiistu hayay u duceeya inta xidhayay u duceeya inta wax ku haystay u duceeya anigoo baabulaahiyana waan u duceeyay ilaahu caafimaad qabku soo celi ilaahu caafimaad qabku soo celi war wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh duco iyo gobonnimo ayaan ku ognay muuso